Shirkadda Google oo ku dhawaaqday dib u cusboonaysiin lagu sameynayo Gmail-ka. Shirkadda Google oo iska leh Gmail-ka ayaa ku dhawaaqday in ay dib cusboonaysiin ku sameyn doonto adeegga Gmail-ka. Waxa ku cusub ayaa ah in fariimaha kuugu soo dhacaya inbox sida ay kuugu kala muhiimad badan yihiin aad u kala calaamadeysan karto. Marka hore, waxa uu ku soo bandhigayaa fariimaha aadan akhrin, fariimaha muhiimka ah iyo kuwa sida khaaska ah aad u danaynayso. Cusboonaysiintan ayaa kuu suurtagelinaysa in fariinta lagu soo diro si gaar ah aad u calaamadeysato si hadhow aad si fudud ugu heli karto marka aad u baahato. Sida uu sheegay website-ka Phoneria, calaamadeynta nooca fariinta gaarka ku ah waxay aad muhiim ugu tahay dadka fariimaha faraha badani ay u soo dhacaan. Adeegan cusub waxaa heli kara oo qura dadka qalabkooda ku shaqeeyo Android, iyadoo ay jirto in dadka iOS isticmaala ay in muddo ah adeegga isticmaaleen oo ay haysteen. Waxaa xusid mudan, adeegan cusub 15 maalmood ay ku qaadanaysaa dadka qaar inay helaan, waana sida ay sheegayso shirkadda Google. Warkan amba warbixintan waxaanu ka soo xiganay Goobjoog News. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar kuna soo biiri channelkayaga. Sidoo kale, waxaad taabataan gambaleelka garab yaala subscription-ka si uu kuu xasuusiyo marka video la soo geliyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.